sheekh waxaan loo leedahay haddaad duulaan ka dhanaa mujaahidiinta ku baaqday waxaad ogaataa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday nasri iyo guul iyo gargaar ayuu alla noo ballan qaaday wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin adina waxaad sheegatay inaadna tirtiri doontid oodna soo afjari doontid marka labada balqaad kii ruma baa arki doonaa insha allahu tacaala soo ceeb weyn ma ah adigoo muslim ah dadkaagii layntooda inaad ku faraxdo ood sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yidhaahdo waan ka xunnahay dadka meeshaa ku baaba'ay soo ceeb weyn ma ah soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayoo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraaddo gaalaan baabi'iyey iyo murtadiin baan baabi'iyey ood ummaddii ku tumato ilaahay baan idinku dhaariyey suuro noocee bay u taallaa ma taasaa jihaada ma taasaa gaala la dagaalan ah ma taasaa waddan xorayn ah ma taasaa muxuu ahay khayr iyo wanaag iyo guul lagu doonaya abadan abadan suuro qabiixa wey gaalada noocyada kala duwan iyo murtadiinta noocyadooda kala duwan dhammaantood waxay noo yihiin hadaf mashruuca oon allah subxaanahu wa tacaala aanu ku caabudayno ayay noo yihiin dilkooda iyo waxa way qarxintoodu marka ha laga fogaado oo ha laga cararan leenahay maxaad samayn doontaa rabbigaa markaad intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbigaa tabaaraka wa tacaala hortiisa intay kugu dhagaan ay yidhaahdaan rabbiyow waa ka kiina dilaye weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما waxaa jawaab loo heli karaa ruux muslim oo la dilay miyaa ilaahay agtiisa jawaab loo heli karaa jawaab ma leh bacda shirki dambi ka weyn ma jiro rabbigeena tabaaraka wa tacaala meel cad buu masalada saaray goodiga ugu adag ee quraanka ku soo aroorayna wuu ku sheegay ruuxii ruux mu'mina dilo kas u dila abaalkiisu waa jahannama waana ku waarayaa allana waa u cadhooday waana lacnaday cadaab weynna waa u diyaariyey nabigeennana sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ruuxa mu'minkaa diintiisa inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaaraama gelin dhiig xaaraama markuu galo diinkiisii waa cidhiidhyamayaa waasacnimadiibuu waayayaa xaalad khatara iyo cidhiidhi buu gelayaa xagga diinta arrintuna waxa weeye sida nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hal ruux oo mu'minoo xaqdarro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in ay adduunyadu baaba'do oy zuusho adduunyadan samaawaadkeeda iyo dhulalkeeda iyo badaheeda iyo buuraheedu inay baaba'do baa ilaahay kala fudud hal ruuxoo mu'mina dilkiisa maxaa yeelay mu'minku waa ka xaq weyn yahay ilaahay agtiisana waa ka karaamo badan yahay adduunyada oo dhan xataa kacbada sida xadiidka nebiga ku sugan sal alla alay wasalam xataa kacbada waxaa ka qiimo badan ruuxa mu'minka ah maanta kacbo la dumiyey nin kacbada tegey oo dumiyey xaalkiisu inalama fududaadeen laakiin ninka boqolka naf ee mu'mina isu maray cagta mariyey warkiisu waa fudud yahay allah tabaaraka wa tacaala naf mu'minada agtiisa kuma fududa malaa'igta markuu rabbi ku yidhi waxaan abuurayaa dhulka waxaan ku abuurayaa addoommo kuway ah oo u kala dambeeyoo maamula ibni aadamka laga hadlayaa ayay malaa'igtu waxay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku addimaa rabbiyow dhulka ma waxaad yeelaysaa cid fasaadisa oo dhiigga daadisa malaa'igtu u fiirso dunuubtii kaloo dhan mayna sheegin laakiin ibni aadam waxay ku eedaysay oy ku sheegtay dhiig buu daadin doonaaye seebaad dhulka u keenaysa ma waxaasaad rabbiyow dhulka keeni dhiig la daadiyo sidaas daraaddeed baa maalinta qiyaamada xisaabta rabbi maxkamadda waxa ugu horreeyo oo dadka lagu kala saari doono dhiiggaa u horreeya intaan fayl kale la furin oo diiwaan kale la furin oo wax kale xisaabtooda la qaadin dhiigga ugu horeeya awwalu maa yuqdaa bayna annaasi yawma alqiyaamati dimaa
dhiiguma sahlana ruuxa mu'minka ilaahay rumaysanay qalbigiisa wax yaro iimaana ku jiro ruux muslim adilkiisa hatta kalima niskeed hatta hal xaraf kagama qayb qaato waa ka carara waa ka ixtiraaza waa iska ilaaliya waa iska jira waa ka dhowrsada laana wax weeyaan waa meel halis ah ruux galayna kama baxo sida asarka Abdullah ibn Umar uu tilmaamayo ruux galay kama baxo kama bixi karo bal waxa dhacaysa marka aad dhiig daadiso Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu kugu imtixaanayaa dhiigaasi inuu ku jiido dhiigag fara badan oo marka ku fududaato inaad dhiig cabto oo bada dhiig ajiidho oodan u aabayeelin waxaad samaynayso waxay ka dhalatay dambi aad gashay nataa'ijtiisa waa arintu waxay u baahan tahay dadka muslimiinta khaasatan ummadan aan luqadeeda ku hadlayay ee ibtilowday ee intaas sano dhiigeeda daadinaysa ee jaraa'imta galaysa xagee loo tagi doona soo Allah maxkamadiisa la tagi maayo tabaaraka wa ta'ala maxaa samayn doontaa rabbiga marka intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa ta'ala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله وحيابها دعية وواحد لغنح وانا واحد لغا مرقوده وانا واحد لغا يقصده حالده سواحي سي أدكته مركز جرائم تنوع عاصل لغو السمين يو مقع جهاد مركز لغو السمين يو مقع دينة إلهي بالله نصرين يا marka lagu sameeyo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladu si adag tahay maxaa yeelay dadkii diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisa lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidada baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinaya kullu dalika mafaasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo oo sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiyay murtadiin baan baabiyay oo ummadii ku tumato إلهي بان إذن كل داري سورة نوعية بيوتالا مساسا جهادا متاسا قال الله دقالنا متاسا وضن حرينا متاسا معوها خير وناق يقول له قدونيا أبدا أبدا سورة قبيحة حد سوغانيسان وحد دعيميه ويصوهر مرتي تاريخ ذا مركز ديب لو آخريو فكر كان منحرف كأه إن دي قو آبيالينين meel alla meeshuu arkaba dhiig cabaya daaqaya fikirka noocani saalixiinta iyo caruurta iyo dumarka iyo dadweynaha aan dan ka lahayn fikirkaasi hadana ku faanaya hadda ma aha markaad akhrido kutubta taariikhda iyo siirada Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khaliifkii raashidka ahaa ragii islaamka qaaday ragii ugu horeeyay buu kamid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisii buu qabay ilmaadeerna way ahaayeen asagoo nool buu nabigu jannada ugu bishaareeyay saabiqiintii buu kamid yahay afarta saxaabada ugu fadli badan ninba dhiigiisa xalaashaday islaamnimo iyo jihaadna ku xalaashaday ninkaasi wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo khawaarijta Ali ibn Abi Talib oo salaada u soo baxay intuu u yimid ومدح كدفت سجى نينكل علي markuu dhacay ayuu wuxuu ku yiri kudul akhri Ali oo yaala wuxuu yiri Ali xukumka Ilaahay baa iskale aduguna malihid saaxiibadana male xukumka Ilaahay baa iskale muxuu ka wadaa kitaabkii Ilaahay baad ka leexatay oo rag baad ra'yigooda qaadatay xukumka Ilaahay baa iskale annaguna waxaan ku dilaynaa
دين ربي إن سوعل إن كتاب إلهي ندولك كحكم حكمك إلهي بأسكلا أذي الرقاق مليه ذين عليو مرقاسو أخريي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ذاتك وحا كمذا روح نفتي سإلهي كقضي رضيه سيسقو الراديني وحان كودي لعليو شنان كقول ربا رضا إلهي كقدوني وحان ربا ديقاق إنان شنكو قلو الله أكبر ما علي با ديقيسة شنان لغو قلي ما علي با ديقيسة كتاب الله لغو كريالي ما علي بن أبي طالب با ديقيسة نصرة دولة إسلام لغو دلين فكر عجيبة markaasaa mid dib ka yimid oo ragga fikradda xambaarsanaa aba amaanay wuxuu leeyahay ninka duriddaa sameeyey ee cali duray taqi ilaahay ka baqayuu ahaa duriddaa iyo dhibka uu geystayna jannuu ku raadinayey ilaahayna riduu kaga helaya marar badan baan xusuusan buuhi ninkii nooca ahaa markaasaa waxaan leeyahay buuhi ilaahay agtiisa addoommada midka ugu miisaan culus buu noqon doonaa yaa kariim ما أبشع صورة آدف الحوان ومع ذلك الرقبة جنة الراسنية علي بن أبي طالب دلكي سهدي جنة لقو الراسنية صومالي الله انتوضا إن جنة لقو الراسنية محاضو الله يابي مرك علي بابا جنة لقو الدونتي فكركم مرها دوق الله عضو ووجدك كبيرو هالسوان وحارد الله وحن نوع عصو كلا إن دين الله تيريا وخلط إن كتاب الله الله تيريا وخلط إن جهاد مجعيس الله سيه وخلط إن لا تاجره وخلط إن لا يبر النقدنا وواجب نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه صحابي جيس خالد بن الوليد وإنتو تأويل سمية دتي خالد أدلي أي النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد إله بريبان كاي كمنا تشيرو كمدنا مي خالد وحو سمي بريبان كاي خالد هو اجتهاد الدلال بين كاي خير دوم بوها نعم ما أنت إنا تنك سارتو دفاعدو وضوح النوع سوكلا أضدو ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وحن نوع سوكلا لو مضدو لما ندفاعه ولا قبر النقضاء حداد كبر النقوم ويدي كرقم مناته وحادو قاني سهل قدو النبي يقول صلى الله عليه وسلم قفك مركا الله سميهو ودولك الله سميهو نينك قوبتا تشوغا نعب ee aan doonaynin wuxuu la mid yahay sidii ruux ka maqan oo kale ruuxa goobta ka maqan laakiin raalli ka ah waxa dhacayana sidii isagoo goob joog ahaayoo sameeyay buu la mid yahay haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaas oo kale aad ku faraxsantood jihaad u haysato inay bannaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dambi baatiin ka soo amrayna idinla dambi way midka sheegtayna la dambi way waxa noocaas oo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumayaal ah oo boqolaal dhaawac oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo ummad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaas oo kale ina tunka saaratood ku faanto aaway iimaanki aaway diinti aaway akhlaaqdi insaanka caadiga ah baan sheegan karay ilaahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala meeshaynu ku socono meel sahlan ma inxiraafku meeshuu gaadhayna meel sahlan ma aha da'yarta iyo dhalinyarada waxaan u sheegayaa xamaaska iyo niyad wanaagga iyo jannadoonnimadu yaysan cadaab idinla gelin adoo jaahila waxba garanayn mid aan ku dhaaminba markaad u tagto oo uu ku yidhaahdo khalqiga allah jannaduna waa iridda adiga janno waxaa idin dhaxaya naftu inay kaa dhacdo laa oo aad haliishood iyo cadood jannada ku orado oo ay ku timaado wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuun waxaad filanaysaa waxaan ay kugu soo baxo meelaad ka noqoto male mindi uus ku tagtay rabbi baabaad hor tagtay janna meesha taala naar baa taala xisaab baa taala khalaa'iq aad laysay baa meesha taala ma waxa ku shafeecay hebel baa yamay ma waxa wax ku daraysa ururkan ka tirsana ma waxa wax ku taraysa niyadaydu way fiicnayd ma waxa waxba ku tarimayso warkaadsada oo tartiibsada oo hays halaagina oo ummadda halaagina oo Allah ka baqa tabaaraka wa taala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin